munaasabada tilmaamaysa ayaa waxa ay soo baxay aayadahaas oo Ilaahay uu leeyahay wama arsalna fi qaryatin min nabiy ma aanan soo dirin qaryo nabi kama aanan soo saarin dabcan nabigu waxa loo soo saaray inay Ilaahay rumeeyaan oo jidkiisa ay raacaan markaasay diidaan markay diidaan natiijadu waxay iska noqotay si caadi ah fa akhadnaahum qabashadaas bil ba'saa'i wad darraa abaaro iyo dhibaatooyin in lagu qabto waxa loo qabtayna waa kaleexashadii ay jidka Ilaahay ay ka leexdeen xalkiina aayada ka dambaysa sheegtayo Ilaahay wuxuu yiri walaw anna ahla alqura aamanu wattaqaw dadka magaalooyinka hadii ay Ilaahay rumeeyaan oo ka cabsadaan la fatahna calayhim barakaati min as-samaa'i wal ard ciriya dhulba barako ayaan uga samayn lahayn laakiin ayaga diidayo wixii ayagu ay sameeyeen ayaan ku qabanay marka hadii abaar aragtid ama colaad aad aragtid wax cirka ka soo dagay oo dadka la iska maagay ma aha Ilaahay aayad wuxuu ku leeyahay ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهي نعمة أوسيه كقاضي مايو إلا أيوة إسك قاضان مركا هوشا إنو تعالى أنكشر إنو ووح بنانك إسك يالو قرآنك سأوفا فاهيي ومدى الصوماليات وحالة ربا إني ديب السوق نقطه ودنبيد واوين ولقلايو ودلكو وهريو إني جوجيان وإلهي كعب سدان haddii laakiin dilkii iyo dhibaatadii iyo colaadihii iyo wuxuu Ilaahay reebay oo dhan sida caadiga inoo noqotay la isaga wato haddana abaar ayaa laga sheeganaya isma keenayso Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ama afeef hore lahaw ama adkaysi dambe lahaw marka afeeftii horena waata waxa loo fadhiyana waa adkaysi abaaraha loo adkayso abaaru ma adkaysan karnee aan Ilaahay ka cabsano aan iswaraysanno waxa dhibaatada keenay sida quraanka Ilaahay noogu tilmaamay ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا وحاستر هذا أنتم حقيقة السعوتا قل هو من عند أنفسكم أكتين أيك السعوتا هداد وناك سناتانا وعد نولانا يسان وفعنانا يسان هداد ديدانا سيدي حواليه أمجيل الإيجري رجاتكم اسكو فوقيا أيال اسكو سي فوقينا يا ما أنت على علاضة سوكية أو قبائل أيال اسكو أبابليا رق يا هوين أيا هربوديا وضيال ويلا وعمر جوجا ayaa colaado hurinaya kadibna waxa la rabaa marka in barwaaqo reyn la helo waa waxaan iskeenaynin waxaan ku soo gabagaynaa maahmaahba waxa jirtay nin baa intuu neef ayaa libax ka qaaday markaasuu agtiisu la fariistay libaxii iska cunaya neefkii ninkii libax uu ka cabsanaya uma dhawaan karo intuu ka sii jeestay wuxuu yiri libaxii yaa arkay oo neefka iga qaaday mid baa wuxuu ku yiri waaba arag haytee saantis may ku weydiyaas waa hortaadu fadhiyay Soomaaliyeed colaadaha iyo dhibaatooyinka inay waxaan keeneen waad aragtaane baaritaan maxad ka raadinaysaan ma fulisaan awaamirta Ilaahay waa maasantii salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh Sheekh Cabdul Hayy